guduudka kale ugu horeeya haddaan gelino guduud baan ka dhigi karnaa. sidoo kale haddaynu soo socono orange baan ka dhigi karnaa. waxaanu ka dhigi karnaa akhtar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبض داوديال كسو دوادا كنالك Islamic Technology sidoo kale kusoo dhawaada muuqaalka shanaad ee aynu kaga hadlanay muuqaaladii taxanaha ahaa oo aynu kaga hadlanay application-ka loo yaqaano PixArt. application-ka PixArt waa application u shaqeeya qaabka Photoshop-ka waxaana adeegsada dadweynaha graphic designer-ka ee caalamka. insha Allah ta'ala application-kan iyo tutorial-kiisa sii wadi doonaa. haddii aad nagu xidhnayd ahlan wa sahlan waad ka warhaysay muuqaaladan. haddii kale oo aad nagu cusub tahay waxa muhiim ah inaad soo daawato muuqaaladii hore si aad u fahanto run ahaantii waxyaabaha aynu ka hadlayno. haddii aad application-kan oo free u baahan tahay waxaad booqan doontaa comment-iga ugu horeeya. waxaanu ku geyn doonaa bartaan ku leenahay Telegram-ka insha Allah ta'ala. halkaas oo aad kala degi doonto version-ka aad rabto oo application-kan insha Allah ta'ala. sidoo kale maanta insha Allah ta'ala waxaanu ka hadli doonaa qaabka loo bedelo color-ka ama midabka dharka aad xidhan tahay ee aad sawirka ku gashay qaabka loo bedeli karo. inagoo isticmaali doona laba hab insha Allah ta'ala oo aan idinku tusi doono insha Allah ta'ala haddii ay bahawooda inoo ogolaado. marka ugu horeysa application-ku waa kan application-kan soo furi doonaa si aynu u fahanno insha Allah ta'ala. laakiin intaynaan halka ka gudbin waxaan jeclaaday inaan kuu sheego haddii aad kala kulantay application-kii hore PixArt-ga wax cilada waxaad la soo degi doontaa application-ka hadda aan soo dhigay oo ah version ka duwan version-adii hore oo bilaa cilada insha Allah ta'ala. marka waxa uu yaalaa description-ka. sidoo kale waxaad ka heli kartaa barta Telegram-ka hadda aynu ku noqono cashirkeena insha Allah. markanu application-ka sidan oo kale u soo furno application-ka qaabkan ayuu noo soo bixi doonaa. kadibna calaamada wadarta ee hoosta ku qoran ayaynu ku dhufan doonaa. calaamadaas ayaynu ku dhufan doonaa. kadibna waxay noo soo bixi doontaa shaashadan. marka haddii shaashadani kuu soo bixi weydo waxaa muhiim ah inaad soo daawato muuqaaladii hore si aynu iskula jaan qaadno. sidoo kale haddii aad ka caajistay inaad muuqaaladii hore aad daawato meel ay ku qoran tahay edit photo ayaad raadin doontaa. optionada halkan kaaga soo baxaya insha Allah ta'ala aad ka raadin doontaa. waa haddii optiono kale ay kuu soo baxaan oo kuwan aan ahayn. marka edit photo halkay ku qoran tahay markaynu ku dhufano waxa uu si toos ah inoo geynayaa bartaan ku leenahay gallery-ga. sidaa awgeed waxaan ku soo dari doonaa mid ka mid ah sawiraanta aynu rabnay inaynu color-ka ka bedelno insha Allah ta'ala. okay sawirkii baan si toos ah u taabtay kadibna waxa uu ina keenay shaashadan. sidaa awgeed halkan waxaynu ka raadin doonaa meel ay ku qoran tahay effects ayaynu ka raadin doonaa. waa halkana effects-ka aynu ku dhufan doonaa si aynu color-ka aynu u bedelno. marka qoraaladan hoos ku qoran qoraaladaas ayaynu xaggan u riixi doonaa. waxaynu ku dhufan doonaa meesha ay ku qoran tahay color ayaynu ku dhufan doonaa. kadibna waxaan ku dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay color replace halkaas ay ku qoran tahay ayaynu ku dhufan doonaa. sidaa awgeed waxaan arkaynaa wax circle camal oo kale aynu halkan noogaga soo baxay. circle-kaasi waxa weeyaan circle-kaas ku muuqday halkan kaaga muuqda waxa weeyaan color-ka aynu taabanay. marka waxa jira calaamad yar oo focus oo halka ka muuqata oo aynu arki doono ayuu ku tusi doonaa yacni waxyaabaha uu select gareeyay ama uu doortay. mar walba color-ka aad duligta ayuu eegaan doonaa. waad la socon doontaa si aad insha Allah ta'ala aad fahanto. marka imika halkaas waxaan wadaa circle-kii baan hayaa. marka calaamad yar oo plus oo center-ka ah oo aad arki doonto ayaa jirta. marka calaamadaas color-ka aad adigu rabtay inaad bedesho ayaad insha Allah ta'ala taaban doontaa. marka imika waxaanu rabnaa color-ka blue-ga ee kabta inaynu bedelno. marka color-kaas aynu dul dhigi doonaa. farahaynu ka qaadi doonaa. kadibna blue khatar ayuu noqday. marka color-ka inta badan waxa maamula kan ayaa maamula color replace huge ay ku qoran tahay huge color replace ay ku qoran tahay ugu sareeya maamula. marka dot-ka yar bedel kolba dhinac u riixi doontaa. tusaale ahaan waxaan geyn doonaa redka bidixda ugu koornayaan geyn doonaa ama casaanka ama guduudka ugu koornayaan geyn doonaa. guduud bay kaba hodhan noqdeen. guduudka kale ugu koornaya haddaan geynay guduud baan ka dhigi karnaa. sidoo kale haddaynu soo socono orange baan ka dhigi karnaa. waxaanu ka dhigi karnaa akhtar. akhtar khatar aynu kasii dhigi doonaa aad iyo aad boqolkiiba boqol akhtara. waxaanu ka dhigi doonaa shay yara ah like grass ama daaqa oo kale oo eegama dooga saa u taqaano. waxaanu ka dhigi doonaa blue. waxaanu ka dhigi karnaa blue violet baynu ka dhigi karnaa. waxaanu ka dhigi karnaa mid kale oo canafiinta ah. waxaanu ka dhigi karnaa casaan ah oo run ahaantii aad ilaa aad xad ilaa xad ama boqolkiiba boqol run ahaantii casaan ah. sidaa awgeed haddii color-ka kugu xigaad u fiirsanaysaa color-ka aad meesha ka raadinaysaa haddii ku jiro ama color u dhow waad geyn kartaa dotkan ayaad riixi kartaa. haddii aanu lahayna waad iska dhaafi doontaa insha Allah ta'ala. haddana hoos baynu uga soo dhaadhacaynaa agta ay ku qoran tahay mix huge. waxaynu ka raadin doonaa color-ka aynu raadinay redka aynu ku jiro koornahaas buu xoogaa yar color-ka redka ashabaha kaga jira. si aynu color-ka markaa u sii xoojino iyadaan riixi doonaa koornahan geyn doonaa. imika sida kuu muuqata waxa weeyaan waxa uu noqday runaadii kabihii waxay noqdeen dhulkii akhtarka blue-ga markii hore ahaa waxay noqdeen ilaa xad boqolkiiba boqol waxay noqdeen casaan ama guduud af Soomaaliga loogu yaqaano. insha Allah ta'ala inaad fahanteen insha Allah ta'ala waan rajeynaya. sida awgeed mar kale halkan calaamadaha kaas waa color-ka aynu dooranay color kale aynu dooran karnaa oo aynu ka dhigi karnaa surwaalka
ama cadaankan oo kale hadaynu rabno inkastoo cadaanka aanu qaadan oo qaab kale oo cadaanka loo bedelaan aynu tusi doonaa insha Allah taala marka calaamadahan balaaska aynu taaban doonaa balaastan mid kamid aynu taaban doonaa ilaa 2 kalar ilaa 3 kalar baynu bedeli karnaa marka waxa weyn surwaalkaas aan rabaa inaan wax ka yara bedelo sida awgeed calaamadan balaaskan taaban doonaa u fiirso calaamada balaaska markaan taabto kadibna calaamada balaaska waxaan dul dhigi doonaa surwaalka okay waxa la moodaa inuu kalarka hore masaxmay ma aanu masaxmin runtii waad arki doontaa inaanu masaxmin laakiin waxaan dul dhigi doonaa surwaalka ayaan dul dhigi doonaa kadib markaan surwaalka aan dul dhigo kadibna calaamada sare huyuujka riixi doonaa u fiirso sare huyuujka riixi doonaa marka surwaalka wax badan iskama bedelayaan ta hoosaan yara riixaya ta hoosa ku caawinaysa hadii sare wax badan bedeli weydo wadayn ka arkay surwaalkiina wax badan iska bedbedelayaan sababtoo ah taas baan waxaan keenay kalar kale ayaan keenay sida awgeed hoosta kasii hooseysana way ku caawin doontaa si ay akhtarka u sii kordhino tan akhtarkeenu ku daynayna yani waxooga akhtarayna ku yara darnay wax jira kalaraan aan wax badan laga bedeli karin 100% aan la bedeli karin baa jira kalar markii horeba aan 100% ahayn 100% isagna ma bedeli kartid sida awgeed kalarkan waxa ku jira cadaanka ku yara fara badan mar hadduu cadaanka ku badnaa surwaalka wax badan lagama bedeli karo laakiin waxooga way yara bedelay afagtiina ku yara furnay waxooga kalarkiisa yara bedelay waxa rajeenay inaad isbedelka inaad fahmi karto ama isbedelku inuu ku muuqdo waxa jira marmarka qaar oo waxyaabaha qaar la iska masax loo baahdo sida awgeed waxaan sameyn doonaa hadii Ilaahay dhaxdo sawirka mid iska bedeli doonaa sawirka inuu soo gelin doonaa waxyaabaha marmarka qaar loo baahdo insha Allah taala ayaan tusi doonaa marka sawirka waan ka baxaya sawirka la ku soo daray insha Allah okay hada sawirkan ayaan soo bedelnay ninkan shaatigan redka ama shaatigan guduudan ee uu xiran yahay ama funaanadan guduudan ee uu xiran yahay ama casaanka aynu bedeli doonaa marka ugu horeysa waxaan tagi doonaa effects sidii aynu hore u tagnay kadibna waxaan tagi doonaa halkan colorka aynu ka raadin doonaa kadibna color replacement taaban doonaa kadibna calaamadii bay noo soo baxday kadibna calaamada waxaan shaarkeena dul dhigi doonaa ama shaatiga ama funaanada kulba soo taqaan dharka uu xiran yahay dul dhigi doonaa kadibna marka horeba waxay noo taagan tahay automatically markaas waxay ku taagan tahay blue sida awgeed waxaan ka dhigi karnaa akhtar hadaan doono akhtarkaas aan ka dhigi karnaa laakiin waxaad arkaysaa hadaynu akhtar ka dhignay in hadaynu soo dhaweyno uu jirkiisa uu noqday maxay akhtar tusaale ahaan ay u fiirso jirkiisa qayb kamid ah akhtar noqotay akhtarkana tusaale ahaan waynu u baahannahay maxaan sameeynaa waxaan sameeynaa marka ugu horeysa halkan aan tagi doonaa halkan markaan tagno kadibna waynu masixi doonaa calaamada stickista mar hadaan tagnay masaxaad buu u baahan yahay marka ima facekiisa taabanaya facekiisa seen masaxay wad arkaysaa seen facekiisa uga masaxay wad arkaysaa sida awgeed ayar adigoo runtii ka taxadiraya inaad kalarkii hore tusaale ahaan redka aad masaxdo kale saas oo kale ma aanu masaxo kale aad u masaxdo hadduu gacantu kaga dhacdo undo ba taaban kartaa laba goor undo ku dhufan doontaa laba goor baan taabsiye gacanta sidoo kale restore waad ku dhufan kartaa in tusaale ahaan saas oo kale ay tahay halkan hoosta restore ku qoran tahay halkaas aad ku dhufan kartaa kadibna saas gacantaada ugu tirtiri kartaa waxyaabihii runtii ka masaxmay sida awgeed waxaan rajeynayaa in meel kasta oo magaranaysa kalarkaas uu ka soo dhex galo tusaale ahaan gacmaha kale inaad si fiican uga masixi karto kadibna aad intaad haweyso kadibna aad export gareyn karto ama gallery-ga ku save gareyn karto ujeedku waxa ay idin tuso ujeedku ma aha inaan dhamaystiro oo aan qurxiyo laakiin ujeedku adiga runtii shaqo badan lagaaga baahan yahay ujeedku waxa ay idin tuso sida awgeed mar kale waxaan ku tusi doonaa kalaraanta qaarkood oo aanu bedeli karin option kani sida awgeed waxaan isticmaali doonaa insha Allah taala tricks kale ama hab kale inuu isticmaali doonaa waan ka bixi doonaa gallery-gan marka la sawir kale kaga soo dari doonaa okay sawirkan aynu ku soo darnay sawirkan hadii aynu tagno effects-ka oo aynu tagno halka ku qoran tahay color oo aynu tagno halka ku qoran tahay color replace kalarkan cadaanka ma bedeli karno wax kasto aan sameeyno kalarka cadaanka waxba kama bedeli karno sida awgeed waan iskaga baxaynaa qaab kale inuu isticmaali doonaa halka calaamada cancel-ka inuu ku dhufan doonaa kadibna waan iska discard gareyn doonaa kadibna waxaan sameyn doonaa hadii Ilaahay dhaahdo color baynu dul dhigi doonaa kalarkaas baynu ku masixi doonaa markaynu kalarka ku masaxno ayaan insha Allah taala waxaan isticmaali doonaa options kale sida awgeed marka ugu horeysa halkan ay ku qoran tahay add photo halkaas aynu ku dhufan doonaa insha Allah taala halkaas add photo ay ku qoran tahay optionadan ku dhex jirta kadibna gallery-ga waxaan kaga soo daray photada ama sawirka redka ama gabigiisu one kalarka casaanka ama guduudka uu yahay aan kaga soo daray kadibna waxoogaa baan opacity-giisa yara dhimi doonaa ilaa iyo meelahaas aan ka dhigi doonaa 60 iyo dhowr iyo 60 isla markaasna waxaan ku dhufan doonaa halka calaamadaas ku dhufan doonaa hadii Ilaahay dhaahdo calaamada iskiisada aynu ku dhufan doonaa kadibna halkan koorna ay ku qoran tahay inference halkaas aan ku dhufan doonaa kadibna dhamaantii waa la waayay kadibna sawirkan soo yara dhaweysanana waxoogaa kadibna sida ku muuqata waxa soo baxaya inaad sawirka adigu aad ku tirtiri karto marka aad gacantaada ku tirtirto waxaad arki kartaa in kalarkii aad meesha dul dhigtay uu runtii ku soo baahayo
ama kalarkii meesha aad dul dhigtaa insha Allah tacaala kaaga muuqan doona sida awgeed wada fiirsan kartaa sida wax u socdaan. Okay, hadda kalarkii aan dul dhignay ayaynu wada marmarinay oo aynu ku masaxnay. sidaad arkayso haddaynu soo dhaweyno koornayaashu u dhaadhaafay, koornahan u dhaafay, koornaha kale u dhaafay, waad arkaysaa meelaha aan loo baahnayn bus ka gaadhay inuu garankoo keliya ku koobnaaday ahayd ama shaarka uu xidhay oo keliya ku koobnaaday ahayd. sidaa awgeed waynu iska masaxaynaa. halkan iskiisadaynu ku dhufan doonaa, halkaas iskiisadaynu ku dhufan doonaa, kadibna meelaha aan loo baahnayn saasaynu yar masaxaynaa inagoo saa uga siinayna markaaba ku dhaqsanayna insha Allah tacaala. sidoo kale haddii meelaha qaarkood uu kaa masaxmo saasoo kale uu kaagaga masaxmo ama meelo aan loo baahnayn tusaale ahaan aad gacanta ku dhufato undo baad ku dhufan kartaa ama halkan restore ayaad ku dhufan kartaa oo taas dib ugu masixi kartaa. labada option hore inuu soo aragnaa filaya. kadibna ila socda insha Allah tacaala waxoogaa baan yara dedejinayaa bacdama ay waxoogaa waqti yara qaadanayso inaynu habayno insha Allah. marka ila socda insha Allah. okay, asxaabta qaaliga sida kuu muuqata dhammaan kalarkii waynu wada marinay hadda sida kuu muuqata koornayaashiina insha Allah tacaala waynu ka masaxnay hadda si fiican bay isku leeyihiin kalarkii baashu. sida awgeed haddana shaarka ama runaantii ama garanku si fiican ama funaanadu si fiican ugama muuqata meesha, dharku si fiican ugama muuqdaan dharkiisu, dhar uu xidhayna tahay iyo kalar la duligayna tahay waa la kala garan karaa. sida awgeed waxaynu rabnaa in waxoogaa yara naashnaashino kadibna taasaynu marka hore ku dhufan doonaa. halkaas safety hal mar ku dhufan doonaa, laba mar maaha. kadibna waxoogaa opacity-giisana kor yar qaadayna halka sida kaaga muuqato ilaa iyo waxaan ka dhigi doonaa meelaha 80 to 90 baan ka dhigi doonaa. okay, ama ilaa 75 kaasaan ku daystay. kadibna kalarka waad kordhin kartaa haddaad u baahan tahay. kadibna waxaynu soconaynaa halkan halkay ku qoran tahay blend, halkaasaynu ku dhufan doonaa. kadibna waxaan ku dhufan doonaa meesha ku qoran tahay multiple oo kala xagga sare qoraalada ku qoran multiple ayaynu ku dhufan doonaa. kadibna qaabka ay noqotay waynu arkaynaa waxoogaa meelaha shaarku ka yara laalaaban yahay si fiican baa uga arkaysaa. sidoo kale haddana waxaynu halkan inuu soo soconnaa meesha ku qoran tahay adjustment ayaynu ku dhufan doonaa. kadibna waxaan ku dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay huge. kadibna kalarkan doonaan ka dhigi karnaa sida kuu muuqata kolbadha kaa riixday ku xidhan tahay. marka any color baa ka dhigi kartaa adigoo rabto ayaad ka dhigi kartaa. waxaan rajeynayaa si fiican insha Allah tacaala ay fahanteen. anu tusaale ahaan kalarkaas oo kale aan tusaale ahaan ka dhigaya hadda. kadibna waa iska export garaynaya u fiirso halkaas ku dhufanayaa. kadibna mar kale aan kusii dhufanayaa. kadibna hadda kalarkii hore ka duwan yahay shaar kale inuu xidhan yahay la moodo ayaynu save garayn karnaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.